علي إبراهيم حسن وسيدتني شنجر aan haysan wax walba oo qof bini'aadam ku noolaado oo ay ugu horeeyaan hoyga cunnada dharka iyo tan ugu muhiimsan oo caafimaadka si aan wax badan uga ogaano xaaladiisa dhabta ah bulshada Soomaaliyeedna aan ugu soo bandhigno ayaan ku booqanay halka uu ku nool yahay oo ku taala waqooyiga degmada Daynile ee gobolka Banaadir ugu horeynba markaan tagnay halka uu ku nool yahay waxyaabaha aan aad kooga naxnay ayaa ah godad aad u dheer oo ka qodan irida laga galo guriga macmalka ah ee uu ku nool yahay Cali Ibraahim Xasan dadka kaamka la degan ayaa inoo xaqiijiyay inaysan jirin cid ehel ama qaraabo ah oo la nool aabahan Soomaaliyeed markaan gudaha u galnay hoyga ka sameeysan bacaha iyo marooyinka aan celin karin dhaxanta iyo qorraxda maalintii ayaan weydiinay xaaladiisa iyo waxa ummadda Soomaaliyeed ka dalbanayo dadka daraska koob oo gaawan ku siiyaan waa ku fiiraan waa ka tagayaan alxamdulillah dibkaas jiro ina ogaatiin caafimaad waa jiranay raaya way bararsiin dalmaayo ma haysan malahan qoorti saas way caafimaad la'aan ugu la'aan qaniin muslim dhaxdeed Allah muslim loo bixiy saas dibkaas iska jiro ka cabsaha inay dibkaan liiga qaado oo meel fiican liidajiyo oo liidaawayo dalmaayada isay qaliikan iyo qonaa liiga dhayo saas u baahanay aabahan Soomaaliyeed ayaa wuxuu ummadda Soomaaliyeed ka dalbanaya caawinaad Mulki Cabdiraxiin Xasan Tusma TV duleedka Daynile.